kusoo barnaamijka caawiya caalamka qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin madaxweyne Trump ayaa New York Times ka dalbaday inay shaaciso magaca sarkaalka isqariye ee aqalka cad kaas oo soo dusiyay maqaal si adag u dhaleeciyay madaxweynaha kumanaan qof ayaa weli la yahay 4 sano kadib markii ururka isku magacaabay dawladda islaamku uu weerar ku ekeeyay dadka Yaziidiga ah ee degan waqooyiga Ciraaq warbixin gaar ah ayaanu arrintaas idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah robot cusub oo wax qala ayaa la filayaa in lagu isticmaalo cusbitaalada UK sanadka soo socda caawana dooda qamiista waxaanu ku eegi doonaa shirka maamul goboleedyada uga socda magaalada Kismaayo kala soo BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa aniga Maxamed Cabdi Xaraare oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay waa maalin kale iyo war kale oo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qas kale oo ka soo baxay aqalka cad Donald Trump ayaa u jawaabay xubin sare oo dawladdiisa ka tirsan oo isaga oo isqarinaya ku eedeeyay madaxweynaha inuu damiirkiisu xun yahay qaatana go'aamo aanu u meeldayn sarkaalkan sare ayaa jariidada New York Times u sheegay in shaqaalaha sare ee aqalka cad isku dayayaan in ay madaxweynaha ka ilaaliyaan dalka hadaba waxa uu warkiisa ku daray sarkaalkan in madaxweynuhu damiirkiisa aad u xun yahay iyo in asaaska dhibaatadu tahay damiir xumada iyo miyir qabla'aanta madaxweynaha hadaba isaga oo warkaasi ka jawaabay ayuu madaxweyne Trump jariidada ku tilmaamay in ay qortay wax lagu qoslo hadalkan ayuu ku yiri isaga oo jooga aqalka cad haddii jariidada New York Times ee si dhacaysa ay leedahay tafatire isqarinaya macnaheedu waa fulay shaqo wanaagsan ayaanu wadnaa tirada dadka noo codeeyay ayaa markhaati ku ah dadka noo codeeyay way badnaayeen qofna uma soo dhawaan karo in uu iga guuleysto doorashada 2020ka shaqada aanu qabanay awgeed shaqadan waxay soo baxday maalin kadib markii qaybo kamid ah buug uu qoray Bob Woodward la soo minguuriyay buugaasoo laga qoray Donald Trump iyo aqalka cad taasoo ku sheegay in shaqaalihiisa sare ay wadaan waxa uu ku tilmaamay in shaqada laga farmaroogsanayo madaxweyne Trump si dalka iyo dadkaba looga ilaaliyo madaxweynaha laakiin sida ay arintani u saameynayso shakhsiyadiisa iyo dalka gudihiisa waatan Amy Pope oo ka tirsan Chatham House tani waa wax aad loola yaabo arrinta muhiimka ahi waxaa qoray sarkaal sare oo ka tirsan maamulka tani lama mid aha qof ka shaqeeya maamulka hoose ee kala duwan qofkan waxaa loo doortay inuu ka shaqeeyo aqalka cad oo uu u shaqeeyo Donald Trump in qofkani u sheego jariidada New York Times in aqalkii cad gubanayo waa wax aan la filayn tani waxaan u arkaa inay tahay fariin in Congressku tallaabo qaado qofkani waxa uu leeyahay marka hore xil ayaa iga saaran dalka iyo dastuurka habka runta ah ee aanu wax u qabanayno waa inaan ilaalino dastuurka waaxda kaliya ee wax qaban kartaa waa Congress-ka haddii aan ahaan lahaa Mitch McConnell ama afhayeenka aqalka arrintan si aad hayaan uga fiirsan lahaa iminka waxaa noo muuqda xubnaha Congress-ka oo baqaya waxay ka cabsi qabaan inay cidlayaan aqalka waayo aqalku waxa uu sii wadaa inuu taageero Donald Trump haddii ay dhacdo doorashada dhexe oo xisbiga jamhuurigu waayaan dhowr kursi waxaa dadka u soo baxaya fursad siyaasadeed oo ay madaxweynaha su'aalo ku weydiiyaan si weyn ay uga warhayaan maamulka waa tahay bal markaan aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta 4 sano kadib kolkii ururka isku magacaabay dawladda islaamka ay weerar ku qaadeen dhulka dadka Yaziidiga ee waqooyiga Ciraaq kumanaan kamid ah dadka Yaziidiga ayaa weli la yahay qaramada midoobay ayaa dambiye bini'aadanimo ku tilmaantay gabadh falada loo geystay dadkan Aisha Afrax ayaa ka waramaysa buuraha Sinjar waa dhulka ay ka soo jeedaan dadka Yaziidi ururka isku magacaabay dawladda islaamka ayaa imika dagaladan dhaadheer ee dhaca waqooyiga Ciraaq ka abuuray argagax raagay 4 sano kadib dhar baqdin daraadeed looga cararay ayaa daadsan buuraha dhexdooda halkani hadda waa goob maran taariikho iyo xusuusta dadka Yaziidi ayaa darbiyada ku xardhan dhulkan hadda ay isma haysato laakiin dad badan oo halkan ka soo jeeda oo rag dumar iyo caruur leh ayaa wali gacanta ugu jira qoyskan farxad ayaa u soo hoyatay
4 sano kadib gabadhooda oo ururka IS ay adoonsanayeen ayaa xorowday. qoyskan ayaa bixiyay $10,000 si Qasal iyo caruurteeda ay u soo furtaan. gurigeeda ayaanu booqanay maalintii xigay markii la soo daayay. Qasal waxay ka baqaysay inaanay weligeed ka baxsan doonin noloshaasi. markii aan gacantooda ku jiray ISIS been ayay ii sheegeen. waxay dhaheen dumarka Yazidi weligood xor ma noqon doonaan, qoysaskooda ayaana dili doonaa hadday guryahooda ku noqdaan. waxaan ka baqayay in qoyskayga ay dilaan. soo dhowayntan ayaa lama filaan igu ahayd. waxaan safar ku tagnay tuulada Kocho oo ah tuulo ay IS isku dayeen inay dhulka dhigaan. hadda waa taalo lagu xusuusanayo xasuuqii in ka badan 1,000 qof oo isugu jira rag iyo dumar da' ah lagu toogtay. hablaha da'da yar ayaa sidoo kale adoonsi loo iibsaday. dhibaatooyinka halkan ka dhacay waa xad dhaaf. Sheekh Nayaaf ayaa murugo la leecaya. walaalkiis isagoo nool ayaa halkan lagu aasay. gudaha waxaa loogu baroordiiqayaa dadkii dhintay iyo kuwa la la'yahay. wiilasha uu awoowaha u yahay ayuu tusinayaa sawirada aabbahood iyo adeeradood. dabaqa sare ee dhismaha joodari iyo dharkii askarta ay ka tageen ayaa daadsan. xabaalo wadareedyo ayaana ku yaala tuuladan Kocho dhinacyadeeda. goobo dad lagu xasuuqay ayaa ka buuxa dhulka Yazidi. lafaha dadka ayay dabeeshu dibadda u soo saaraysaa. dadkuna waxay doonayaan in xabaalahan la asturo. waa halkan meesha ay ISIS ku dishay dadkayga. lafahan ayaa caddayn u ah xasuuqa. waxay daliil u yihiin wixii halkan ka dhacay. waxaan rabnaa in dembiyadan la baaro. qaramada midoobay ayaa falkan ugu yeeray isirsifayn. 4 sano kadib cid weli wax ka qabatay ma jirto. dadka Yazidi ayaana sii rajabeelaya. waa tahay waa qiso xanuun badan. haddii aanu eegno warar kale ee ku jira wararkeena caawana. dalka Japan kooxaha gargaarka ayaa ku howlan in ay soo badbaadiyaan dhowr qoys oo guryahooda ku aasmay kadib dhulgariir xooggan oo halkaasi ka dhacay. dhulgariirkan oo ka dhacay jasiiradda Hokkaido ayaa awoodiisa lagu qiyaasay ilaa 6.7 ilaa 8 ruux ayaa ku dhintay. 10 kale ayaa la la'yahay. ilaa 3 milyan oo guri ayaa korontada weli ka maqan tahay. saraakiisha UK ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin kooban ka siin doonta 2 qof oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii Novichok ee magaalada Salisbury. xeelaalinta Britain ayaa sheegtay in ay jiraan cadeymo ku filan oo dacwad loogu soo oogi karo Alexander Petrov iyo Raslin Boshrov. ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in ay labadan nin u shaqeeyaan sirdoonka ciidanka Ruushka. Shiinaha ayaa sheegay in mar kale lagu qasbi doono inuu argoosto haddii Mareykanku badeecada 200 milyan ee Shiinuhu leeyahay ku soo rogo canshuuro caawa saqdhexe. Beijing iyo Washington ayaa ku jira dagaal ganacsi oo sii daba dheeraanaya iyadoo wada hadaladii bishii hore aanay xal ku soo idlaan. Facebook ayaa in ka badan $1 bilyan ku maalgelinaya in uu Singapore ka dhisto xarun xogta lagu kaydiyo. waa markii ugu horeysay ee Facebook sameeyo isbalaarin noocan oo kale ah. xaruntan ayaa laga dhisi doonaa galbeedka meel u dhow meel uu horey Google uga waday dhismo noocan oo kale ah. waxaa la dhameynayaa 2022. shirkad British ah ayaa shaaca ka qaaday robot cusub oo wax qali kara oo la filayo in la isticmaalo sanadka soo socda lagu isticmaalo isbitaalada dalkan UK. robot Mareykan ah ayaa lagu isticmaali jiray UK 17 sano ugu dambeeyay, laakiin jiil cusub oo ka yaryar oo mashiino oo wax sahlaya ayaa soo socda. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa eegaya. ka fakir kan oo ku qalaya waa farsamadii ugu dambeysay ee teknolojiga. robot wax qalaya dhammaantii bini'aadmi ayaa wada. waxaa la isticmaalayaa qalab kombiyuutar gargaarna laga helayo mashiin 3 dhinac ka eegi kara. ujeeddadu waxa ay tahay sahal in looga dhigo dhakhtarada wax qala markay qofka daloolinayaan iyaga oon qalin oo si toosa meesha loo abaari karo. qofka la qalina go'aan fiican uu heli karo. aad ayay uga sahlan tahay. waxa kaliya oo aad samayn kartaa waa qalabka qalliinka caadiga ah in qofka la dalooliyo. waa inaad qalabka gelin kartaa kana saari kartaa, warwareejisaa oo robotku ku awoodsiin karo dhaqdhaqaaqyo ka fudud kuwii hore. robotkan Vesuas waxaa lagu farsameeyey laguna dhisay Cambridge. gacmahan robotku waxay u eg yihiin xubnaha bini'aadamka, garabka, suxulka iyo camaacunta. way ka yar yihiin kana fudfudud yihiin
habka roobadka ee hadda la isticmaalo oo ka dhigaya qaar warwareeg fudud oo lagu isticmaali karo qalliimo dheeraada iyadoon jidhka la qalinoo la dalooliyey tanu suurtagal may noqon karteen haddii aanu jirin dafinji oo ahaa roobadkii ugu horreeyey ee lagu isticmaalo britain sannadkii 2001dii 70 in ka badan ayaa la isticmaalaa badina loo isticmaalo qalliinka xiniinyaha kaadihaysta iyo qaybaha haweenka habkan veswas ee britishkiihi aad buu uga yar yahay ka maraykanka ee la tartamaya hadda waxaannu rabnaa qalliin qaybta sare ee caloosha ah oo ay ka mid yihiin qalliinka xameetida qalliinno xiidmaha hoose ee cudurka kansarka uu ku dhacay waxaannu doonaynaa inaannu qalliin ku samayno laabta wax ku dhow qalliinkii qofka la daloolin jiray laakiin waxa aad haysataa faa'iidada qalabkan yaryar oo wareejinta camaacuntu u sahlayso dhakhtarka waxqalaya qiimaha roobadka veswas shaaca lagama qaadin laakiin sharikadda samaysay waxa ay sheegaysaa inay ku tala gashay inuu ka jabnaado ka hadda la isticmaalo ee maraykanku ay leeyihiin qalliinka ugu horreeya waxaa la filayaa horraanta sannadka inugu soo aadan mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socdo aad qaybta dambe ku daawan doontaan caawa doodda Khamiista waxaanu ku eegi doonaa shirka maamul goboleedyada ee uga socda magaalada Kismaayo shirkaasi waxaanu ka yeelan doonaa dood dheer sidaas daraadeed bal qadar yar oo nasasho ah dabadeed aanu isku soo noqono wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka bal idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn madaxweyne Trump ayaa New York Times ka dalbaday in ay shaaciso magaca sarkaalka isqariye ee aqalka cad kaas oo soo dusiyay maqaal si adag u dhaleeceeyay madaxweynaha kumanaan qof ayaa uu leeyahay 4 sano kadib markii ururka isku magacaabay dawladda islaamka uu weerar ku ekeeyay dadka Yaziidiga ee degan waqooyiga Ciraaq shirka golaha iskaashiga maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa talaadadii ka furmay magaalada Kismaayo dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayaa ku wada sugan shirkaas dhowr shir oo hore ayay goluhu hore u yeesheen magaalooyin kala duwan ku yeesheen ajandayaasha shirka waxaa ka mid ah arrimaha awood qaybsiga dastuurka dalka doorashada 2020 haddaba doodda caawa waxaa igala qayb galaya Maxamed Xaaji Ingiriis oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo sidoo kale waxaa doodda isagana ku jira oo igala qayb galaya ugaas waxaa igala qayb galaya xildhibaan Cabdi Fataax Qaasin oo magaalada Muqdisho kaga jira labadiinaba soo dhawaada maasantahay xildhibaan haddii aan adiga kugu hormaro shirka ka socda magaalada Kismaayo maxaad ka ogtihiin ka dawladda Soomaaliyeed ahaan بسم الله الرحمن الرحيم وعيدا ما هذا عرفنا مكورة BBC شركة طبعا شرر عاديا iskaashiga madaxweynayaasha dowlad goboleedyadana ay markay u baahdaan ay wada kulmaan si ay kaga wada hadlaan ayahooda runtii waa ay dowladda ka muujinayso marahan marba ujeedka hadduu yahay maslaxadda guud soo noqon doonaa xildhibaan codkaaga aad waa maqallo maxamed ku soo dhawow Somali BBC Somali TV kulli waa la socotaa waxa ka socda magaalada Kismaayo maxaad ku tilmaami lahayd waxa muuqda isbarbariyac maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa maasantahay xariiri sida muddo intii la sanadkii la soo dhaafayba waxaa jiray iska soo horjeed ama tit for tat waxa lagu yiraahdo isqabqabsiga ama halganka awood lagu tartamo ee dhinacyo khilaafaad siyaasadeed oo ka dhaxeeya Afrika oo dhan oo dhex marayay dowladda dhexe ee federaalka ah iyo maamul goboleedyada waxa lagu loolamayaana waxay ahaayeen awoodda xukunka maadaama dastuurkii meesha yaalla aan lagu dhaqmayn asaga laftirkiisana uusan qeexayn awoodaha ay kala leeyihiin labada wadan labada dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada siday u wada dhaqmayaan moodo wadamo kala madax bannaan inay yihiin maamul goboleedyada dhexdooda ha noqoto ama dowladda dhexeba qaabka ay ula dhiilgaraynayaan ama loo dhaqmayaan baahida loo baahnaa marka waxay ahayd inta dib la isugu noqdo in la helo shuruuc lagu kala sooco
awoodda dowladda dhexe iyo awoodda federaalka waxay tahay iyada oo aan xoogga la saarin sidii loo shakhsiyadayn lahaa arrinta shakhsi meel laga qaado meel loo dhiibo mid kaloo meel la keeno macno ma samaynayso waxa ugu weyn ee macno samaynaya ee raad reebaya ee ka tegaya lasting legacy waa in la helo shuruuc ay ku kala haraan oo dowladba dowladday kasii dambayso ay ku wada macaamilaan maxamed waxir kaadi taleefanka waxaa uga jira magaalada Kismaayo wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ugaas Xasan Cabdi ugaas haddii aad maqlayso magaalada Kismaayo adiga ayaa jooga maxaa ka socda shirka wuxuu furmay talaadadii ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay muxuu ahaa shirkan ajandihiisa fiidnimo wanaagsan BBC waa idin mahadcelinayaa dabcan saad adiguba hore kala ku sheegtay maalintii talaadada ahayd waxaa ka furmay shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya oo shanta madaxweyneba ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo halka jubbada hoose ajandaha shirku waa sidii iftitaaxii horeba madaxda goboleedyada ay sheegeen waa shir guud ahaanba looga hadlaya arrimaha amniga siyaasadda dalka dhaqaalaha dalka iyo arrimaha dastuurka intaba waa gartay waxaa ku jira ajandayaashiina markii la soo bandhigayay inaad ka hadlaysaan arrinta ku saabsan doorashada 2020ka arrintaasi ma ku jirtaa weli mise waa laga saaray shaki kuma jiro saad ogtahay baa 2016 doorashadii dhacaysay inta aanan la soo gaarin 2016 15 iyo 14 baa laga hadlayay doorashada geyga Soomaaliya ka dhacaysa 2016ka tanna way ku jiri karaysaa 2020 ama 2020 bilowgiisa doorashada dalkeen uu qaadan doona nooca ay noqonayso hadda laga sii shaqeynina suurtagal ma noqonayso wadankan inay doorasho ka dhacdo waa gartay haddii aan ku weydiiyo wasiir waxaan xasuusanaa tusaale ahaan Cabdiweli Maxamed Gaas oo 5 sano muddo ku dhow ka hor lagu doortay Puntland markii la dooranayo wuxuu lahaa waxa la sameeynaya doorasho hal qof iyo hal cod ah oo laga hirgelinaya Puntland maamulkiinana sidaa weli ma uusan dhihin kan Jubbaland ma uusan dhihin sidee mid sare ugu gudbaysaan adinkoo tiina aan xalin karin aad baad u mahadsan tahay horta dowlad goboleedyadu ma aha jamhuuriyado gool oo ka madax banaan qaranka Soomaaliyeed waa dowlado xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed waxayna wax qabaan guud ahaanba sida qarankeenu uu yahay bay dowlad goboleedyaduna yihiin marka doorashada dadka ayaa ka go'ay wasiirka aad iyo aad ayaan uga xunahay maxamed haddii aad eegto xeerarka baarlamaankuna xeerar badan ma ka dhigin arrintan isqabsiga sameynayso maamul goboleedyadana waa aragtaa oo sheekooyin kale wadaan oo aanan meel loo raaca lahayn sidee waxaan looga bixi karaa dalkan sidee la isugu keeni karaa oo dowlad saxa looga abuuri karaa waxaa looga abuuri karaa in dadka la weydiiyo afti wadankana amnigii ayaa gacan ku jirin dhinacyada maamul goboleedyada badankood iyo dowladda dhexe labadaba ayadoon ammaanka xoogga la saarin oo amnigii wadanka aan wax laga qaban ma suurtagelayso in shacbiga la weydiiyo afti wadanka qaab dhismeedka qarannimo ee uu qaadanayo laysma warsan shuruuc kastoo lasoo saarana ma fuli karaan waayo waxaanay ku fuli karin dowlad goboleedyadiina wadankii meelaha ay sheeganayaan gacanta uguma jiro dowladdiina wadanka gacanta kuma wada hayso marka qaab waxay loo fulin lahaa ayaa adag marka meesha laga bilaabayo ugu horeysaa waxay tahay bal qaab dhismeedka ay ku dhisnaanayaan maamul goboleedyadu in dib loogu noqdo oo dowladda dhexe iyo ayagu ka wada hadlaan amnigii dib loo soo celiyo see loo maareynaa waxaan oo ay awoodoodu intay gaareen xukunkii wadanka see loo baahinaa oo dowladda dhexe ay ugu suurtagelayay inay wadanka wada gaarto marka waa dhibaato xoog leh oo wadanka taalla waana wax dadka badankii u aaneynayaan habkan federaalka ee jira laakiin ma aha habka federaalka dhibka jira waa habka loo isticmaalayo habka federaalka loo hirgelinayo ama sida loo fahmayo meelaha qaar oo aad arkayso in madaxda maamul goboleedyada sidaan hadda aragno markuu mid meel ka tago meesha kala tagayo inay isula macaamilayaan sidii laba wadan oo isu yimid oo kale calamo inay kala qaadanayaan maasanta xildhibaan haddii aan kugu soo noqdo waa maqlaysay maxamed xaaji ingiriis hadalkiisii ma muuqata inaad adinku qayb ka tihiin dhibaatooyinka dalka ka socda iyo isbarbaryaaca badan maadaama aad xeerar keeni weyseen inta aad meesha joogteen guud ahaan dowladda federaalka mar kastaba waxa ay diyaar u tahay si diblomaasi ah si waxa weeyaan la furan si niyad wanaag ah waxa weeyaan inay ula tacaamusho dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya
waa sax mid inay jirto in dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dastuurkeenan ku meel gaarka ah waxyaabo badan oo iska hor imaad inuu jiro intaa laga xalinayana mushkiladda waxaa weeyaan ay sii taagnaanayso haddana sidaa ay tahay marka laga hadlayo waxyaabaha qaar quseeya tusaale ahaan doorashada quseeya amniga quseeya muxuu ahaa awood qaybsiga khayraadka iyo wixii la midka ah waxayna tahay haddii loo fiiriyo si soomaalinimo ah inaanay wax mushkilaha ka taagnayn sida dastuurkeena inkastoo xildhibaan maqalkaaga aad iigu xun yahay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su-aal si kooban adigoo iigu sheegaya ma jira ilaa iyo hadda 2 sano aad fadhiseen aqalkan sharci arinta kala qaadaya maamul goboleedyada xilkooda iyo xilkiina oo aad mariseen oo meesha keenteen shuruucda dabcan waxay ku wada qoran yihiin dastuurkan waxa weeyaan shaqa ku socota shuruucda kale ee haddeertaan la isku haysto oo ay ugu horeyso electionka iyo modalitygiisa ama qaabka uu noqon lahaana waa wax laga wada shaqeynayo maamul goboleedyadiina iyo dowladii federaalka in badan ay isku fahmeen maantadan ugu dambeysay golaha wasiiradana waxa weeyaan ay ka fariisteen ugu dambeynna dib loogu celin doono isla maamul goboleedyada kadib xildhibaan aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan filayaa in weli Kismaayo uu ku jiro wasiirka warfaafinta South West ma ku jirtaa wasiir waxaa ku jira kala ajandayaashiina looga hadlayay khayraadka qaybsiga khayraadka dalka khayraadka aad ka hadlaysaan ma mid bisil baa mase mid cayriina sidiisaba codkaagu waa nugu litaa maxamed khayraadkan laga hadlayo Soomaaliya khayraad lala soo baxay ma lahan maamul goboleedyada khayraadkan ay ku soo celceliyaan maxaa laga hadlayaa mid bisil mase mid cayriina khayraadka ay ka hadlayaan khayraadka sida caadiga uu yahay isma laha khayraadka ay ka hadlayaan waa inay u madax banaanaadaan inay kambaniyada caalamiga ah ee wadanka yimid ay la galaan heshiisyo ay kula galaan in sida kalluumaysiga sida waxa ay raadinayaan ama ha noqoto shidaal ama ha noqoto uranium waxay noqotaba laakiin khayraadka ugu muhiimsan ee hadda ay tahay in laga wada hadlaa waxay tahay gargaarka laga helo caalamiga ah gargaarka caalamka waxa loo yaqaan international aid khayraadka ay qayb ka tahay see loo qaybsanaa gargaarka la siiyo wadanka hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca caafimaadka see loo wadaagaa taas inay qayb ka noqoto in maamul goboleedyadu ay dowladda dhexe u ogolaadaan awoodda ay u leedahay inay iyadu qaybiso dowladda dhexena si cadaalada ayaa ay tahay inay u qaybiso oo ay wadanka wada gaarsiiso si wadanka looga helo dowlad wada maamusho dhexe oo ma aha dowlad maanta taagan kaliya waxaan tahay in laga wada tashado dowladba dowladay ka dambeyn doontaa ee imaan doontaa marka maxay noqon doontaa awoodda dawliga ee meeshan ka imaanaysa marka ayagu waxay doonayaan maamul goboleedyadu inay helaan wax badan ay u madax banaanaadaan isku daygaasuna waa socdaa dhinac walba waa ka socdaa maxamed aad iyo aad u mahadsantahay xildhibaan haddii aan kugu soo noqdo su-aasha ugu dambeysay aan ku weydiin doonaa waxa ay ka hadlayaan ugu weyn maamul goboleedyadu waa in la qabto doorasho hal qof iyo cod ah taa ma la helayaa aragtidaada runtii haddii wada shaqeyn ay dhacdo iyagana laga helo waxay la tahay waa aaminsanahay 2020ga inay dhici karto dowlado fara badan oo xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ku sugan ayay ka dhaceen meelaha amnigana waxa weeyaan waa lagu qaban karaa dadaalada socda marka loo fiiriyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xukuumadaba marka madaxda maamul goboleedyada waa maasantaa xildhibaane aad iyo aad ay u maasantaa waqtiga ayaana soo haya maxamed aad iyo aad ayaad u maasantaa waqtiga ayaana soo qabtay xasuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.